السلام عليكم maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bisha sagaalaad sanadka 2021 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo xeer madaxweyne ku magacaabay guddi qaran oo baarid ku sameeya kiiska Ikraan Tahliil madaxweynuhu markii uu arkay qodobka 87 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee xusaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu yahay astaanta midnimada qaranka iyo ilaaliyaha horumariyaha mabaadi'da asaasiga ee dastuurka markii uu arkay qodobka 9aad xarafkiisaba ee dastuurka ee xusaya in madaxweynuhu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markii uu arkay qodobka 126aad faqradiisa 6aad ee dastuurka ee xusaya in hay-adaha amniga qaranka oo ah kuwa hubka sita ay kontroolaan oo kormeeraan hay-adaha rayidka ah markii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad Ikraan Tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo markii uu tixgeliyay in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmi ah waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyay qodobadan soo socda waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeeryaaliyaha guud ee qaranka guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeeryaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo 3 xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qodobka 2 waxaa la farayaa dhammaanba xubnaha guddiga iyo guddoonkoodaba in ay hawsha si xalkasnimaha u gutaan warbixinta baaristana ay u gudbiyaan hay-adaha sharciga u leh waad mahadsantihiin